kormeerkani ay maanta sida wadajirka ah wada sameeyeen golaha wasiirada Hirshabeelle ee dhawaan lagu dhawaaqay iyo maamulka gobolka Shabeellaha Dhexe ayaa waxa ay kormeereen xarumaha ay hay'adaha amniga ay ku leeyihiin gudaha magaalada Jowhar sida saldhigga booliska degmada Jowhar, xarunta nabad sugidda degmada iyo difaacyada hore ee ciidamada militariga ay ku leeyihiin duleedyada magaalada Jowhar. qaar ka mid ah taliyaasha maanta xarumahooda la booqday ayaa wasiirada uga warbixiyay xaaladaha ay ku sugan yihiin ciidamada ku sugan xarumahooda. waxaan ku soo dhaweynaynaa waxaan leeyahay wasiiryaal ku soo dhawaada maamul goboleedka Hirshabeelle saldhigga booliska degmada Jowhar anigoo ku hadlaya magaca taliyaha saldhigga booliska degmada Jowhar ahna sihayaha qaybta booliska gobolka Shabeellaha Dhexe si yacni maaragtay waad u jeedaan oo kale burbura ka muuqda saldhigga burbura ka muuqda booliska dhibaato gaar ah hayso ilaahay idinka dhiga dadka bixin lahaa wala sidoo ma yaro yacni meel ibiraha timideen difaacyada maanta aan ku wareegayno waa difaacyada ciidamada qalabka sida waay difaacyada ciidamada waa kuwaasa waxay baahiyo jiro dambeeyana idinka rabaa inaad u baahan yihiin aad soo qabtaan idinka rabaa. gudoomiyaha maamulka gobolka Shabeellaha Dhexe Axmed Meere Makaraan ayaa sheegay in golaha wasiirada ee dhawaan lagu dhawaaqay kormeerkooda uu ku aadanaa booqashada iyo la socodka xarumaha ay degan yihiin hay'adaha amniga. salaan aad iyo aad ayaan maartay maanta ugu faraxsanahay inaan wasiirada cusub oo mar dhow la magacaabay aan maartay goobihii ciidamada ku sugnaa iyo goobihii maamulka ku shaqeeyay intaba aan kormeer badan ku soo marno ayadoo la indheeyay maartay lana socayno hordhacaan ula sii socayn xaaladda maartay in ka jirto caasimada meelaha kale oo muhiimka ah sida webiga oo kale sida uu yahay biilaan u yahay inay soo arkaan iyo waxa ka jiro xaaladda ka jirto. wasiirka warfaafinta Hirshabeelle ee dhawaan la magacaabay Mahad Xasan Cusmaan ayaa kormeerka wasiirada iyo maamulka kadib warbaahinta la hadlay. kormeerkan waxaan ku bilownay saldhigga degmada booliska waxaan halkaas ugu soo dhaweeyay taliyaha saldhigga waxaan warbixin naga siiyay xaaladda guud uu ku sugan yahay booliska degmada iyo kan guud ahaan gobolka waxaan si ku meel gaar u degan taliska nabad sugidda gobolka waxaan sidoo kale booqanay xarumaha militariga halkaas oo ay warbixin naga siiyeen dhammaan taliyaasha isbarasho iyo soo dhaweyn ay noo sameeyeen golaha wasiirada waxaan sidoo kale intii wadada aan soconay runtii aan la kulannay wajiyo aad u qurxan shacabka oo markaas soo dhaweyn noo sameynayo ku faraxsan golihii wasiirada lagu dhawaaqay runtii aad ayaan shacabka u mahadcelinaynaa soo dhaweyntii iyo farxaddii ay na muujiyeen meelaha aan booqanay waxaa ka mid taliska nabad sugidda booliska militariga webiga Shabeelle oo runtii baryahanba go'naay oo laakiin biyo yar oon badnayn keenay waxaan sidoo kale booqanay sayladii xoolaha lagu kala iibsanayay degmada Jowhar. Ismaaciil Cabdulle Sabriye Universal TV Jowhar.